gudoomiyaha rugta ganacsiga Laascaanood Mudane Cabdirasaaq Axmed Warsame mar aanu ku booqanay xafiiskiisa ayaa inooga waramay xaaladda guud ee dhaqdhaqaaqa suuqa ganacsiga magaalada Laascaanood isagoo ugu baaqay qurba joogta iyo guda joogta in la sameeyo maalgashi ballaaran guud ahaan horta ganacsiga gobolku uu fiican yahay wuxuu u socdaa xagga horumarka inkastoo ay jiri karaan inaanu u korayn sidii la rabay inay caqabado jiraan laakiin guud ahaan gobolka ganacsigiisu wuxuu samaynayaa horumar fiican oo marba mar ka dambaysa aad ka dareemi karaysid magaalada iyo deegaanka oo dhan ganacsigaas isu bedelayo runtii way jiraan hoos u dhacyo jira xagga ganacsiga oo xoolihii noolaa ee la dhoofin jiray oo suuqyadoodii ay xidhmeen dadkii dibadda ku maqnaa oo runtii maalgelin fara badan iyo dhaqaale fara badan waddanka keeni jiray oo dibaddii aad ay wax badan uga sii noqdeen oo aad looga dayrsanayo oo taasina waxay waxyaalaha ganacsiga hakadka gelinaya ama sidii la rabay inuu socon waayo ka mida weeye qodobka kale aan isleeyahay caqabaadka ayuu ka mid yahay waxa weeye qodobka la yiraahdo ganacsatadii gobolka oo rag iyo dumarba ah oo aan diyaarin dhalinyaradii kala wareegi lahayd ganacsiga iyagina aad moodaysid marka dambeysay inay sii waayeelayaan teknolojiyadan iyo waxyaalahan casriga iyo ganacsigan casrigana aad moodaysid inay ka hadhi karaan dhinaca kale qaar ka mid ah ganacsada magaalada Laascaanood ayaa dhankooda ka dhiibtay afkaartooda ku aadan suuqa iyo adeegyada ay u hayaan bulshada gobolka Sool Laascaanood runtii waqtiyo badan oo ahayda soo martay marka la fiiriyo haddaan ka sheekayno sanadkii ugu dambeeyay 2015 waxaan moodaa sanadba sanadka ka dambeeya inay magaaladu ka soo fiicnaanayso fiicnaanta waxa keenaysa dadka bulshadu sida ay u soo fahmayaan waaqic carwada magaceeda waxa la dhahaa Guriyasama waa carwo cusub oo la furay waa baartii labaad aan ka furno magaalada Laascaanood bulshada reer Laascaanood degan waxa ka codsanana inay deegaankooda aaminaan carwooyinkooda aaminaan qiimahooda aaminaan alaabtana ka iibsadaan xadarkiisa qof aroosanayo burcaadayo le hurdadii baan doonanaya rantii wax laga naxo qof deegaankiisa intuu lacagta kala carro meel kale aadaya deegaan maharadeeduna waa Bishaaro City Center aad bay u kala socotaa ma sha Allah ganacsiga aad buu u kala socdaa gobolku uu fiican yahay maadaama sanadkii hadda uu tagay oo yara ma garanaysaa uu xumaa hadda laakiin wax badan oo hadda waxaan rabnaa inaan wax badan ku soo kordhino ganacsiga